السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين عاد باندي وذا سلامنا وأنا أوفر دوسي إسماعيلة وأنا ورسول الشيخ محمد وأنا وعاش الله ضنا ما شاء الله. الصحابي سود هذا وتيمكي قول بنيمو ما شاء الله. دمانتين عاد باندي سلامنا ما أنتو حان برنامج هريو سعودي ها نكاجا محدكم مسليح لهيد أنا عاوك صعوننا قيبتي سي لبات إن شاء الله مركب حمد الله هاي كسر دواده دقيقنا نوفرة نصية ها عوض الله نو بلاويس تبين نحن هذا اللي يقصي داي لكن عاوة أيضا بلاويس إن شاء الله سؤالها نعني ولا شيء عشاك لقادن ضمن ما شاء الله برنامج كرتا وحن كسر هذا لني قبل يحاجي كذا ده يسكت دعان حلو أم حي سمين لهيد طلاب ذي قاعد لهيد ما أنتنا قيبتي ذي كلام كهذا aniga ahaan ra'yigayga idinka ma sha Allah qof walba ra'yi fiican baa ku jira laakiin ani ahaan ra'yigayga waxaan ka oran lahaa horta family problem markasta uu iska jira aadiyaad maxaa la yidhi nin inaag colna maaha nabadna ma aha laakiin maxaa fiican wayga ugu fiican oo reerku ku nabadgeli karaan inuu qof walba dhinaciisa ilaaliyo sax وقفك كلا رسبكتي سي حق سنة إلاليه صح وقيميه هدي اللي حناقصين أنا لا يصلب بوقن عاديات أولاد بمشي تمادي هدي أولاد شرت حتى هدين أولاد شرين تعال بيال مرة تعال بيال قفك إلهي بسكين قري قفك أدو حناقصية وأنا قفك كلا استجيه صح وكعامسة صح وحي وكقل دم هذا مركي عادل النقض ولا الوحس دي وقل ها waxaasad igu qaldantay waxa ma iga ka qabta darabti markaas xanaaj ba hadhow toole lan qofki caadi buu yahay laakiin hadii aad aduguna waaldsaguna waasho marka dambe qalqaacada iyo mindiyaha soo guranaysid مر يا طوريا كذا عيسى دي كلام اللي زدجيه معنا جabaan دغنانت wax ka fiican male aadi aad marka waxaan idin leeyahay aniga ahaan raayigayga hal kala dambeeyo hal isqiimeeyo qof walba qofka kale ha qiimeeyo ما شاء الله تبارك الله عاشو كوريج ما شاء الله ورنتيد ولا شيء ومقعيس سيدا للشيغي dadka familka ee markii waxa way sida in la isku sabro way fiican tahay aadiyaad dulqaad badan ay u baahan tahay guriga dhisan labada qofood mid waa lagu degan yahay mar kastaba waxa loo baahay ama wiilka lagu degan yahay ama gabadha lagu degan yahay labada qofood sidoo kale misla fiicnaanayaan markuu asaga qofka bini aadanka haduu asaga ka qaldan yahay inuu qalad ku jiro uu arko inuu asaga ku raali galiyo waa adna hada inaad wax yar qalad aad wiilka ku sameeysid hays aruurinine you have to in adigana magaciisa raali galiso walaalka marna waa walaalka marna waa odayga marna ilmaha aabahood waa mar kastaba labada qofood ma kala maarmaan aadiyaad reerka dhisan wuxuu ku dhisan yahay sabar badan aadiyaad dulqaad badan in loo yeesho u baahan yahay iska soco kaligeed hadaa iskaga socotid wax ku suurtagalay ma lahan ilmahaas inaad wax kasta u fiirisiin waa noloshiina u fiirisiin marka waxaan leeyahay walaalahayga mar kastaba wanaaga ku dadaala aadiyaad qofan wanaag sameynin meel ma gaaray taasan beenahay guriga dhisanna wanaag uu ku dhisan yahay haduu buuq socdo maalin kasta buuq ka taagnaado bari waxay imaanaysaa inay barbaleenkii lagu kala tago aadiyaad waarun وسي بدنا وأنا لقول كلا تجايا لكن أنت اللي جارين وحي حنبه هدي إسكا سارتين إسكا قبته أو على لا وحن واتكو قلدنتها سيدا إنسان وفعناه إسقابتين معلم ما أنت كواحد سي جالس هناك قول بتجالس مارون يقولي وين هذا لقول رستي وارون قنايا dadki qofkina waa sii baranaysiin yes sida kala dadka yar iskuma adkaystaan aadiyaad dadka waa weyn aqli maskax isku celiyaan ay qabaan dadka yar yar oo teenagerka ama gabdhaha labada jir oo isku cusub markay isku isma fahmayaan adigana dabeecad gooni wadataa sabta labada sano ugu horeysa dadka aad bay isugu dhibtooda asagana dabeecad gooni u leeyahay adigana dabeecad gooni aad leedahay laakiin waxa loo baahan yahay mar kastaba in isku soo dhawaado maalinteed kale maalinta isla joogtiin ciladii meeshii soo gashay baad iska saartiin ma noqonayso wax dheeraanay aadiyaad waxay soo jarayaan markii dambe waxay noqonayso wax in isku fahantiin marka waxay leeyahay walaalahayga wanaaga ku dadaala guryahiina ha iska baabiinina boqol guryaha kugu duraysan waxa jirta sometimes naagaha qaar waxa la sheekaysan information kala ha siinin
adiga ninkaa wax idinka dhex dhaco labadiin cidna ha la wadaagin cidna ha la wadaagin sirra waxaan u leeyahay moor adiga qof kale aa u sheegtid ama qof moor lagaa sii sheekada haddaa adiga isaga qalaad fiir labadiin idin dhex yaalo idinka ha idinku ekaatee labadiin saa ku heshiin lahedeen falankeeda gala ama asaga ha ku dulqaato ama adiga inaad u dulqaadatid gabadha aan kala hadlayo waxay damcinaha ha u sheegin saaxiibadaad asagana sidoo kale saaxiibadiis hadii kula tasho waxaa laga yaaba inay qasaan naagta maxay kuu sheegaysa intay ku dhahaan waa gabar dulqaad inaa u yeelatay u baahan tahay ninka ragga asaa dulqaadka loo baahan yahay gabar ay adigana gurigeeda dhaqo wanaag iyo sharafna kula dhaqan intaasay iga tahay insha allah waana xaggayga walaashay aan u wareejinaya insha allah maasha allahu tabaaraka allah aada iyo aad ba umahadsantihiin janalkaa daawanaysaan waa janalkii firdowse ismaaciil maasha allah waxaan leeyahay guriga gobonimo gaar horay usii soco maanta barogaraamka waxa daadihinayo waa aniga warsana firdowse iyo caashaladan waa tiimkii aad taqaaneen ee quruxda badnaa ee guul iyo gobonimo la baxay aniga fariinta aan wado waxaa la iiga soo dhiibay dalka Kenya fariinta aan gudbinayo oo janalkan caawa aan ku gudbinayo oo barogaraamkan aan ku gudbinayo waxaa la iiga soo dhiibay dalka Kenya waxaa la iigu soo dhiibay runtii barogaraamkan markaan soo daynay ee firdowse dooratay ee ah ninkaaga maxaa ku maslixi lahayd baa gabadh daawatay fariin noo soo dhiibatay firdowse waan u sheegay insha allah waqtigan kusoo qaadanaynana waxaan ka dhigaynaa baan ku yidhi qaybta labaad iyo maxaa ninkaaga ku maslixi lahayd waxaa jirta waayadan dambe in laga fahmay jacaylka iyo guurka si xun si qaldan loo qaatay wanaaggii laga tegey xumaantiina la badsaday waxaad arkaysaa gabar ku dhahayso waan jeclahay ninkayga waana gubayaa jacayl iyo dab meel ma wada galaan ma gashaa meel waan jeclahay ninkan iyo waan gubayaa meel ma wada gashaa waxbaa la wada gelaya maaha waan jeclahay gabadhan waanan dilayaa meel ma isla galaan maya islama galaan gabaray ninkan aad jeceshahay ee aad gubaysid maxaad ku gubaysaa maxaad ku jeclaatay waay aad u gubaysaa haddana jacaylka xagguu kaa aaday qalbigii jilicsanaa xagguu kaa aaday macaankii xagguu kaa aaday xaggey kaa aaday quruxdii xaggey kaa aaday rabitaankii aad qofkan ku rabtay eed shalay isku guursateen eed meel ku wada degteen inaad gubta qalbigaaga suu kuu siiyey damiirkaaga siduu kuu siiyey caqligaaga siduu kuu siiyey calooshaadiiyo beerkaaga say kuu siiyeen inaad qof islaam ah oo adigu aad la degtay oo aad gogol wadaagteen oo noloshii aad la qaybsatay inaad gubtid sideed ku jeclaatay maxaad ku jeclaatay waa masiibo inteeda barogaraamkan markii la bilaabayey waxyaalihii ugu badnaa ee barogaraamkan aan rabnay inaan uga hadalna waxay ahayd ragga iyo dumarka isgubayo maxaa ninkaaga ku maslixi lahayd dilka oo kale toogasho ha noqoto ama mindi ha noqoto yacni sanadkan oo kale ataa imisaa dhacday maxaad ninkaaga ku maslixi lahayd ma aha maxaa ninkaaga ku maslixi lahayd ma aha in ninka keliya la maslaxayo gabadhu maslaxay u baahanta raaligelin bay u baahantahay ayadaa mudanba in la raaligeliyo la maslaxo ayadii baa la rabaa inaad jacayl badan aad siisid ayadaa la rabaa inaad qalbiga ka baadashid oo qalbigeeda qalbi degan oo naxariis le ka dhigtid gabaray marka dabkan ka hadlaynaa dilkan ka hadlaynaa gabar ninkeedii dilayo gabar maxaan ku rahday ninkeedii gubayso beer adkida maxaa ku keentay qof dhan oo islaam ah aad jeceshahay haddana waa kaaga daran haddana indha adeega intaa la eg weligay ma arag ilaahu ha igu keenin rabbi ow raxmaan ow anigana ha iga dhigin gacan ku dhiigle waxyaalaha aan ka naxo waxay tahay oon runtii aada oga baqo markaan arko ninkan jacayl baan u gubay waxyaalahaas aad baan oga yaabaa ma jacaylkii baa dab isu rogay dab taraq iyo baasiin iyo kabriid iyo adduunyu isu rogay jacaylkii jacayl ma aha kaasi waa jacayl waali ah gabaray naftaada qabo xakamay naftaada maseer hadduu ku hayo xitaa maseerkaaga ha noqdo maseer xadadan maseerkaaga ha noqdo maseer aan karkaarada ku weydaanin maseerkaaga hadduu noqdo maseer karkaarada ku weydaarinayo waa la iska qabtaa shaydaanka la iska naaraa aad iyo aad ood wax dilaysid haddaad aragtid maseerkaasoo kale waxa weeye dadka waa lagala dhuuntaa walaa qaraca waa ilmahaaga aabahood hadhow ilmahaga maxaad u sheegaysaa kaaga daran YouTube aad ku jirtaa Facebook aad ku jirtaa Instagram waa saaran tahay
gabadhi ninkeedu gubto Instagram ay saaran tahay Facebook ay saaran tahay YouTube ay ku jirtaa WhatsApp social media hadan ay ku jirtaa WhatsApp lagu soo share gareynaa maxaan ku raadayay iimadii waa saaran tahay korkeedii maxaan ku raadayay waxay saaran tahay Snapchat-ka lagu soo galiyay berri ka maalin wiilkaaga ama gabadhaada aad aabahood gubtay oo dabka aad ku rogtay ama toogatay badhe haddana loo dhigaayo ilmahan kayd ba loo sameeyay wixii video ka baxay oo adiga halka inta soo fariisata training-kaygu waan gubay gabaray ha isa soo duubin war soo ilaahay ma taqaanin war waxaan waa kugu dhaceen qadar Allah ku qaaday shaydaan ba qaalib ka noqday ninkii islaamid waad gubtay war gabadhii waa dishay war haddana inta soo fariisataan YouTube iska soo duubina war jannalada la idinka soo duubaya diida war gabadhan intay soo fariisata dhahaysa ninkaygii baan dilay gabaray ha soo duubin ilaahay hadda taqaanin caabiyay kula tagin waxaan isleeyahay barnaamijkan uu sii soconayaa gabdhaha Soomaaliyeedna waa uga digayaa gabaray ninaad gubtay intaad banaanka la soo fariisato ha dhihin ninkaasaan gubay waana ninkaygii oo waan jeclaa waa ceeb dadka ka soo duubay oo YouTube ku soo dhigayana ha ka yeelin inaad wajigaada ay soo duubtaan am Facebook because qofka bini aadamka sharaftiisa in lagu ciyaaro waa wax record garaysa hatta aad dhimatid waa marxaad ma adiga naftaada kuma fiicna amar ilaaha kugu dhacay amala ku qaaday shaydaana ku duubsaday laakiin shaydaanka adiga ku soo duubsaday magaciisa hadda tooba dhihi la dib u noqon lahaydna hadalkaada banaanka yaalo ilmihii bari markay fiirsadaan ma ku jeclaanay ilmaha hadda hooyaday waa kaas aabahay gubtay yaa ka xun aabahay waa kaas hooyaday gubtay yaa ka xun war waxaan la idinka record garaynaya iska daaya jannaladan la idin soo gelinaya iska daaya war gabaray naftaada u baq war gabaray naftaada u baq oo xisho oo recording kan laga duubayo oo YouTube-ka inta lagu soo geliyo lagaaga dhigayo marqaati anigii baa kugu marqaati farayo ku daawaday because ada afkaaga ka yiri ana gube ilmahaagu berri markay ku daawadaan maxay sheegayaan ama ana dilay ama sababteed oo dhinto subhanallah ilaahay ka xishooda aadanahana ka xishooda YouTube-kan aad soo galeysaan aad isku cadaynaysaan dambiga ilaahay agtiisa ku yaalo astaghfirullah dheh janalka intaasan ku soo gabagabeynayna insha Allah biidnillaahi alkariim waxaan idin leenahay share and like and comment wa xaqina asxaabay idin salaamayna wixii ra'yigiina ka soo dhiibta wa rahmatullahi wa barakaatuh guul iyo gobonimo